Maalin ayaa waxaa dhimatay gool kadib markii ay dhashay. Xilligaas meesha waxaa marayay xayn ida ah. Cagabaruurkii ay dhashay goosha wuxuu ku darmay oo raacay idihii meesha marayay. Iduhuna waxay u qaateen inuu ka tirsan yahay iyaga. Sidaa darteed, cagabaruurkii yaraa wuxuu ku dhex koray idaha. Xilligii uu ku dhex noolaa idaha, wuxuu aaminsanaa inuu lax yahay, maadaama iyaga uu ku dhex koray. Sidaa darteed, caadi ayay u ahayd inuu u noolaado sidii neef ida ah. Wuxuu noqday mid cuna cawska iyo caleenta. Wax fikrad ah kama uusan haysan gebi ahaanba libaax wax la yidhaahdo. Weligiisna kuma uusan fakirin, kumana uusan riyoonin inuu libaax yahay. Muddo markii uu ku dhex noolaa idaha dhexdooda, cagabaruurkii yaraa wuu weynaaday oo wuxuu noqday libaax dhalinyaro ah oo qurux badan. Maalin maalmaha ka mid ah, idihii waxaa soo weeraray libaax kale oo duurjoog ah. Aarkii weerarka ahaa markii uu arkay libaaxa yar ee idaha ku dhex jira, wuu aamini waayey wuxuu indhihiisa ku arkay. Yaab iyo fajac ayay ku noqotay inuu arko libaax ida ku dhex jiro oo aysan ka baqaynin. Wuxuu go'aansaday inuu qabto libaaxa idaha ku dhex jiro oo uu faraha ka qaado idaha si uu u ogaado sababta ku kaliftay arrintan. Xayntii idaha ahayd markii ay arkeen libaaxa, waxay bilaabeen inay cararaan si ay naftooda u badbaadiyaan. Sidaasi si la mid ah, libaaxii dhalinyarada ahaa isagiina idaha ayuu dhex cararay si uu naftiisa u badbaadiyo. Inkastoo ay ku adkaatay aarkii weynaa inuu qabto libaaxa dhalinyarada ah, haddana ugu dambayn wuu ku guulaystay inuu qabto. Wuxuuna ku yidhi, niyahow dabbaalka ah, maxaad iiga cararaysaa? Libaaxii yaraa wuxuu ahaa mid ooynaya, isla markaana barooranaya. Wuxuuna mar walba ku soo celcelinayay, fadlan faraha iga qaad, anigu lax miskiin ah ayaan ahay. Wuu gariirayay isagoo sidii idaha oo kale u ciyaya weliba. Aarkii weynaa wax badan kuma aysan qaadanin inuu fahmo dhibaatada haysata libaaxan yarka ah. Intaa kadib, wuxuu u kaxeeyey meel lag ah oo ay biyo ku jiraan. Markii ay lagta gaareen, ayuu ku yidhi, biyaha ka dhex fiiri muuqaalkeena, isu fiiri wejigayga iyo wejigaaga, jirkayga iyo jirkaaga. Markii uu arkay inaysan wax farqi u dhexaynin, ayuu yaab iyo fajac la fariistay. Waa markii ugu horreysay uu arko inuusan lax ahayn oo uusan laxna u ekayn, laakiin uu yahay libaax. Daqiiqad gudaheedna wuxuuba bilaabay inuu sidii libaaxay u hinraago. Waaba isagii oo gebi ahaanba makhluuq kale noqday. Inuusan lax u ekaynna wuu xaqiiqsaday. Wuxuu dareemay awood uusan weligiis horey u dareemin. Waayo markaas ka hor wuxuu ismoodayay lax daciifa oo miskiin ah. Miskiinnimadii iyo daciifnimadii oo dhan dabaylaha ayay hadda ka raacay. Haddaba fiidiyogan waxaa ku jira fariin qoto dheer oo ku qarsoon sheekadan quruxda badan. Kaliya isweydii awoodaha iyo taalantiga qarsoon ee maskaxdaada dhex yaalla. Waxaa tahay sidii libaaxaas oo kale, laakiin waxa kugu hareeraysan dad sidii laxaha oo kale ah, kuwaasoo kaa dhaadhicinayo inaad wax badan ka hoosayso sida aad ismoodayso adiga. Mar walba waxaa jiri doona dad asxaabtaada ah oo kaa dhaadhicin doono inaadan waxba qabsan karin noloshaada. Waa inaad ka soo dhex istaagtaa dadka noocaas ah oo aad garataa awoodahaada iyo goolashaada mustaqbalka. Maalintaas waxaad garatay awooddii libaaxa aan ka soo sheekaynay ee naftaada ku dhex nool. Idan markaas cid kaa horsaagi karto ma jirto waddada guusha. beri ayaa waxaa jiray nin dhalinyaro ah oo ka shaqayn jiray meel warshad ah. Tababarihiisii oo ahaa farsamayaqaan rogcadaa ah ayaa waxa uu baray inuu hadalka yareeyo, wax badanna qabto, uusanna joojin weligiis xirfadiisa la xiriirto shaqada warshadda. 10 sano kadib, ninkii odayga ahaa shaqada ayuu ka fadhiistay. Ninkii dhalinyarada ahaana wuxuu noqday farsamayaqaan heer sare ah. Hawshiisiina wuu sii watay isagoo ku dadaalaya sidii wax loo baray. Maalin maalmaha ka mid ah, ninkii dhalinyarada ahaa waxa uu soo booqday tababarihiisii. Odaygii tababaraha ahaa wuxuu arkay inuusan faraxsanayn midka yar. Wuxuuna weydiiyey, maxaa ku helay? Ninkii dhalinyarada ahaa inta uu xoog u neefsaday ayuu ku jawaabay, waxaan ahaa mid raaxo tilmaamahaadii oo idil. Sanadihii aan ka shaqaynayay warshadda, dhib iguma haynin wax kasta oo aan qabto.
waxaan ku dadaali jiray aamusnaanta, diiraddana saari jiray shaqadayda. Waan ogahay inaan shaqo fiican ka qabtay warshadda. Waxaana warshadda ka bartay xirfad kasta oo la baran karay. Laakiin waxaan fahmi waayay waxaa jiro dad aanan lahayn waayo aragnimadayda, xirfadayda iyo awoodahayga oo dhammaantood la dalacsiiyey, halkaan ani weli samaynayay wixii yaraa oo aan samayn jiray markii aan ahaa ardaygaaga. Ninkii odayga ahaa wuxuu weydiiyey, ma ku qanacsan tahay inaad warshadda lafdhabar u noqotay? Ninkii dhallinyarada ahaa madaxa ayuu raxay, wuxuuna ku jawaabay haa. Ninkii odayga ahaa wuxuu bilaabay inuu marna dib u socdo, marna horey u socdo si uu u fakaro. Xogaa kadib wuxuu jalaacay midkii yaraa. Waa inaad ka codsataa warshadda hal maalin oo fasaxa, adigoo isticmaalaya sabab kasta oo aad jeceshahay. Waxaa la joogaa xilligii aad kistoo nasan lahayd. Ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu la yaabay talada la siiyey. Mar walba uu ka fikirana micno badan ayay u samaynaysay. Wuxuu u mahadceliyey tababarihiisii si degdeg ahna wuu uga tegay si uu fasax uga soo qaato warshadda. Markii uu shaqada ku soo laabtay kadib hal maalin oo fasax ah, maamulihii warshadda ayaa ugu yeeray xafiiskiisa. Wuxuuna u sheegay in habsami u socodka warshadda uusan wanaagsanayn intii uu maqnaa. Shaqaalihii kale oo dhanna waxay la kulmeen dhibaato uu isagu si fudud u xallin lahaa. Wax fikrad ahna kama aysan haysan sida loo xalliyo dhibaatooyinkaas. Isaga oo garwaaqsaday muhiimadda uu leeyahay, maamulihii warshadda wuxuu go'aansaday inuu u dalacsiiyo ninkii dhallinyarada ahaa jagada farsamayaqaan sare si uu ugu mahadceliyo uguna dhiirigeliyo inuu sii wato shaqadiisa wacan. Ninkii dhallinyarada ahaa aad ayuu ugu riyaaqay xigmadda tababarihiisa. Isagoo isla hadlaya ayaa wuxuu yidhi, xaqiiqdii tani waa sirta guusha. Wixii halkaa ka bilowdo, mar kasta uu dareemo in la siinayo wax ka yar waxa uu u qalmo, wuxuu qaadan jiray hal maalin oo fasaxa. Marka uu soo noqdo maalinta xigtana, sida uu rabo ayaa loo samayn jiray. Sidan ayay sii ahayd xaaladda dhowr bilood. Maalin maalmaha ka mid ah, ninkii dhallinyarada ahaa waxaa laga hor istaagay inuu soo galo warshadda. Isaga oo aad iyo aad u naxsan ayaa waxa uu ogaaday in shaqadiiba laga joojiyey. Wuu rumaysan waayey, macquul ma aha arrintan. Markaan waddo kale u furan ma laha. Wuxuuna dib ugu laabtay tababarihiisii si uu u ogaado waxa khaldamay. Sideen ku waayay shaqadeeda? Ayuu weydiiyey isagoo iskibrinaya. Miyaanan wax kasta u samaynin sidaad adiga ii tilmaamtay? Xaqiiqdii may. Maxaa yeelay waxaad maqashay oo keliya qayb ka mid ah cashirkii aan ku siinayay. Ninkii odayga ahaa madaxa ayuu ruxay. Waxaad og tahay inaanu qofna wax dareena siin iftiinka nalka ee had iyo jeer shidan. Waa keliya marka uu baxo nalkaas oo qof kasta uu ku baraarugo muhiimadda uu leeyahay. Aad ayaad ugu faraxsaneed inaad dhaqan geliso wixii aad maqashay. Laakiin sheekada waxaad ka oraday adiga oo aan dhagaysan qaybtii labaad. Qaybtii labaad? Ninkii dhallinyarada ahaa waaga ayaa ku baryay. Wuxuuna ogaaday inuu dhiiqa lugaha kula jiro. Oo maxay ahayd qaybta labaad? Ayuu weydiiyey. Odaygii bidar dheeraha si tartiiba loo hadlay si uu fikradiisa u muujiyo. Run ahaantii qaybta labaad ayaa ka muhiimsanayd qaybta koowaad. Waa xaqiiq in nal haddii had iyo jeer uu tago lagu bedeli doono mar dhow ama mar fog mid la isku halayn karo. Yaa u baahan nal uusan qofna ku xisaabtami karin si uu iftiin u helo. Waxaad arkaysaa noloshaada, ma leedahay saaxiibo iyo xubno ka mid ah qoyskaada oo aad had iyo jeer isku halayso? Maxaa dhici kara haddii maalin maalmaha ka mid ah aad dadkaasi ka weydo garabkaada midig? Ha sugin maalin noocaas ah oo aad si lama filaan ah ugu soo baraarugto muhiimadda ay ku leeyihiin dadkaasi. Maanta u mahadnaq nasiibkaada wanaagsan ee aad noloshaada ku haysato dadkaasi. Sidoo kale ha u ogolaanin dadka kale inay garan waayaan qiimaha ay leedahay naftaada. Laakiin isla xilligaas shaqadaada qabso. Hana ka istaagin wax kasta oo aad qabsato adigoo u sababaynayo inaysan u soconin sida aad adiga doonayso. Isku day inaad hesho dheelitirka nolosha. Noloshana waxay kuugu abaalgudi doontaa inay kugu soo celiso dheelitirkeeda. Thanks for watching and stay blessed.